Dit is les 37 kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee ku xidhan barnaamijka halmaal ee barashada afka Nederlandska. Waxaan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonaa weedho iyo ereyo la xidhiidha marka aad digtoorka u timaado ama aad xanuunsanayso ee aad jiran tahay. Cashar walba markaad ku celceliso ayuunbay maskaxdaadu qabsan kartaa. wixii dhowr goor lagu celceliyo maskaxda bini'aadmiga ama maskaxdeenu way qabataa. waa in aad dhowr weedhood maalintii mid 2 iyo 3 cashar walba aad isku daydo in aad ka xafido. hana ka xishoon ee isticmaal qofka aan istijaabin ee ka xishooda luqadaha hore uma barto qofkaasi marka ha lagu dadaalo ayaan idin lahaa. Hoe zeg je ik ben ziek tegen de dokter in het Nederlands? haddii aad timaado huisartska ama dhakhtarkaaga gaarka ah waxa dabcan uu ku weydiinayaa halka ku xanuunaysa. haddaba inta aanad u tagin digtoorka waxa muhiim ah in aad u diyaarsato waxa aad odhanayso ama cabashadaadu nooca ay tahay. waxa inta badan loo aadaa digtoorka kow inaad xanuunsanayso ama kantaroolka dumarka marka ay uurka leeyihiin ama in ay jiran yihiin ama adigu aad jiran tahay dhibaatooyin maskaxda ay ku haystaan oo ay ku dawaqiyeen sida guri la'aanta iskuul iyo dhibaatadiisa cabsi dhinaca ubadkood ka warwarsan tahay warwar culus oo ku saaran dhinaca nolosha ah maskaxiyan oo u baahan in aad kala hadasho qof caafimaadka yaqaana gaar ahaan digtoorkaaga oo kale. haddii aad xallin kari weydo dad kuu dhowna aad kala baqaysa inaad u sheegto waxaa laga yaabaa digtoorkaoo kale in aad arrintaa u soo bandhigi karto. ama xanuunada ijtimaaciga ah ee nolosha oo ku daaliyey maskaxda ku daaliyey oo u baahan in aad bal aad xal u hesho. sidaa awgeed waa in aad taqaanaa ama diyaarsato waxaad odhan lahayd. su-aalaha inta badan laysweydiiyaana waa qaar soo noqnoqda oo caama. halkee lagaa hayaa? muddo intee leeg ayaad isku aragtay xanuunkan? turjubaan miyaad u baahantahay adiga iyo digtoorka ilan caafimaadkaaga inaad shaki gelisa maaho digtoorkaad safgaran weydaan. waa in aad haysataa qof ku raaca oo si wanaagsan kaaga turjuma haddaanad adigu luqadda aqoon. maxaad se ka rajaynaysaa digtoorka oo aad doonaysaa in uu kuu sameeyo digtoorku? tusaale ma in lagu diro shaybaadh oo dhiiga lagaa soo qaado? ma in digtoor kale oo specialista ah uu kuu diro oo isaga arrintaa ka yaqaana oo digtoorada waaweyn ee dhakhtarada waaweyn? mise daawo oo keliya ama talaad uga baahantay digtoorkaaga? intaas marka aad diyaarsato su-aalaha caamka ah waxaan isku dayi doonaa bal in aad qudhaadu bal ku dhiirato in aad digtoorka u sheegto halka ku xanuunaysa iyo ereyada habka loo isticmaalayo. digtoorka markaad u soo gasho marka hore wuxuu ku leeyahay hallow dag meneer, dag mevrouw Heblayo ama meneer Hebel, wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u doen? ama waar heeft u last van? Waar heeft u last van? Wat kan ik voor u doen? waa maxaan kuu qabtaa? Waar heeft u last van? last van haddaad maqasho waa halkee ku xanuunaysa. waar heeft u pijn? ayaa iyaduna jirto halkee ku xanuunaysa una. doet het zeer dhammaantood waa xanuunka iyo damqashada. het doet het zeer haddaad tidhaahdo. het doet het pijn. ik heb last van. saddexdaba haddaad tidhaaho waxaad sheegaysaa un in ay meel ku xanuunayso. sida runta ah waxaad odhan kartaa ik heb pijn in mijn buik. caloosha ay xanuunaysaa. ik heb pijn in mijn buik waa uurku jirta. ik heb pijn in mijn keel waad odhan kartaa cunaha. ik heb pijn in mijn oor waa ik heb pijn waa ereygii pijn markaad isticmaalayso. mijn rug doet zeer haddaad tidhahdana waa isla xanuunkii unbaad sheegaysaa. pijn halkaad ka odhan lahayd mijn rug dhabarkaygii. mijn rug doet zeer. mijn voet doet pijn. mijn voet doet zeerna waad odhan kartaa. mijn hoofd madaxii doet zeer. haddii markaa indhahoo kale dee ama aad wadar sheegayso imika laba laxaad aad sheegayso indhaha oo kale. mijn ogen eeg oog waa mid keliya. ogen doen pijn. mijn oren dhagaha doen zeer way xanuunayaan. marka haddaad u fiirsato ik heb last van iyo ik heb pijn iyo het doet het zeer.
saddexduba waa xanuunkii un. Ik heb last van mijn buik, caloosha ay xanuunaysa. Ik heb last van mijn longen, sambabada ay xanuunaya. Ik heb last van mijn longen. Ik heb last baad leedahay. Lastna ereygaasna waa ziir iyo paynkii baynu ku bedelnay. Ik heb last van duizeligheid, waan wareerayaa. Ik heb last van duizeligheid. Ik heb last van mijn benen. Ik heb last van mijn benen, lugaha ay xanuunaya. Ik heb last van mijn rug, dhabarkuna way xanuunaya. waxa uu ku odhan karaa markaa doctoorku, heeft u andere klachten? Klachten waxa weeye markaa xanuuno kale iyo dhibaatooyin kale miyaad sheeganaysaa. Heeft u andere klachten, mevrouw? Heeft u andere klachten, meneer? Hoe erg is de pijn op dit moment? Ayuu ku weydiin karaa. Xanuunku intuu leegiyey markaad u sheegto taraa ik heb last van duizeligheid. Heeft u andere klachten baa imanaysa. Xanuuno kale miyaa ku hayaan ama waxyaabo kale ma dareemaysaa. Hoe voelt u zich vandaag? Maanta sidee tahay hadduu xanuuno hore kugu ogaa. Markaa ereyadii inagoo ku sii soconna waxaad odhan kartaa ik ben gezond. Verder ben ik gezond. Intaa haddii aan kuu dhaafo wax dhib oo kale ma jirto. Verder ben ik gezond. Ik heb geen last van andere ziekten of andere aandoening. Ziekten waa xanuunadii. Aandoening na waa isla xanuunkii un. Ik ben ziek. waan xanuunsanayaa. Ik heb last van mijn rug. Mijn benen doen zeer. Lugahaygu way xanuunayaan. Ik voel me niet zo lekker baad odhan kartaa. garan maayo waxay hayo laakiin caadi ma yihi. Ik voel me niet zo lekker. Ik ben verkouden. Hargab yar baa haya. Vandaag ben ik beetje verkouden. Hargab yar baa haya meelaad ka shaqaynayso oo kale markaad soo gasho. Ik heb griepna waa hore aan idinku sheegay waa hargab kugu xumaaday, waa xanuun loo jiifsanayo oo virus leh. Griep iyo verkoudheid baa halkan loo kala saarayaa. Ik moet veel hoesten elke dag. Maalin walba waan qufacaya. Ik moet veel hoesten. Ik moet veel hoesten. Qufac badan ayaan toddobaadkii ugu dambeeyey aad u qufacayay. Ik moest veel hoesten de hele week. Ik heb oorontsteking. Dhagaha ayaa infection ama caabuq baa dhagaha iga galay. Infection baa dhagaha leeyahay. Ik heb oorontsteking. Mijn kind, ilmahaagii baad ka hadlaysaa. Hij of zij heeft een longontsteking. Ik heb een keelontsteking. Waxaa laga yaabaa in hungurigu markaa infection iga galay oo waan xanuunsanayaa. Mijn ogen zijn ontstoken. Indhahaygii infection baa iga gala oo way xanuunayaan oo waa taadee aad arkayso doctora waxaa fajay leeyihin baad odhan kartaa. Mijn ogen zijn ontstoken. Waa markay casaadaan ay dareentid. Ik ben depressief. dhibaatooyin kale ku hayaan caamina waxaad leedahay. Ik ben beetje depressief laatste tijd. Beryihii ugu dambeeyey ama maalmihii ugu dambeeyey oo dhan depression baan ku jiraa. Depressionna waxa weeyaan waa mar aad isgaran laaday si allaaliya si ay wax yihiin. waanay ku dhacdaa dadka, laakiin waxaa wanaagsan in laga soo kabmo oo qofku uu mar walba talo dad weydiisto ama isagu ka soo kabmo oo uu positive noqdo. Depression waxaa laga yaabaa inaad waxba qaban kari weydo, farba qaadi kari weydo, haddana waxba kuma hayaan. cimilada ayay noqon kartaa, waxyaabo kugu dhacay bay noqon karaan, dhimashaa dhici karta, waxbaa dhici karta. marka ik ben beetje depressief. Ik ben totaal gestress ayaad odhan kartaa. Stress badan hadduu ku hayo. Ik ben allergisch. haddii markaa aad wax allergic u tahay waxaad leedahay ik ben allergisch voor gras. Ik ben allergisch voor koeimelk. xitaa caanaha lo'da waxaa laga yaabaa inay dadka qaar allergic ku yihiin. marka ik ben allergisch voor gras. xitaa cawska qaar baa ku ah. Ik heb hooikoorts baad odhan kartaa. xanuunkan samboorkee ku dhaca inta badan dadka marka samarku uu bilaabmo. geedahan cufkan yare geedaha ka daatoo kale hooikoorts baa la dhahdaa. Ik heb hooikoorts marka sanka duufka ay dadku kula yaabaan waxaad leedahay ik heb beetje hooikoorts. marka waa lagu fahmayaa waxa ku haya. intaas waynu isla garanay baan filayaa maanta. waxaana muhiima in aad ereyadaas yara barataan oo aad ku yar celcelisaan. Ik heb last van iyo ik heb last van mijn been haddaad tidhaahdo lugtaay xanuunaysa last van. Ik heb pijn, mijn been doet zeer aad tidhaahdo. Mijn rug doet zeer, mijn hoofd doet pijn. Ik heb last van mijn arm, gacantaay xanuunaysa mijn arm. Ik heb last van markaad tidhaah
iyo markaad tidhaahdo ikapain mindbain duudziir dhowr siyaaboodod u sheegi karto in ay meel ku xanuunayso ayaynu soo aragnay marka inta badan waxaad isku daydaawn bal in aad qabato ereyada maalinba 3 ere haddaad qabato kugu filan marka ereyada aynu maanta isku dayi doonno inaynu qabanno kuwaasay noqon doonaan dee intaasaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu